kamid ah xusbiga mucaaradka wadani ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta isla markaana sheegay inuu ku fashilmay xilka uu ikmaday mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo isla markaana baaq u diray xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyagoo amuurahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen sida tan dhibaatada haysata iyo baahida loo qabo gaariga waxa la yaab leh oo aan la yaabanahay dad sheeganaya inay u dhasheen dhaliig oo ku soo doolay inaan gaarigii magaaladii aan la geyn oo aan muddo isku haysanay oo diyaar dad tirayad oo lagu adeegto sheegana inay magaca reerka beesha dhaliig iyo dhuqash matalaan waa dhacdooyinka aan la yaabanahay waxa kale oo jirta xisbigan uu madaxweynaha ka yahay Siiraanyo dhacdooyinka ugu sameeyay degmooyinka dhaliig iyo dhuqash xagal inuu kala socsoco u bixiyay hebel galbeed iyo hebel bari oo waxyaabaha aad noogu adkaatay laakiin waxaan la yaabanay dadka aqoonyahanka reerka u dhashay ee arrinta ka hadla eeganaya ujeedada ku jirtana wali ayna iyagu hoos weegin in la qaybqaybiyo magaalooyinka ku dhasheen iyo dadkoodii iyadoo loo adeegsanayo dad loo daadiyo dhamay laakiin insha Allah garoonka la isugu doono inta dhamay daadina ficil karo waxa kale oo jirta dhacdooyinka halkan naga soo maray waxa jirtay dad lagu dilay jaalka cunaa lagu qabtay qofku dambiga marka kale waa la xiri karaa laakiin qof cunaa jeel lagu qabtay wali ma arag hadduu isleeyahay madaxweynuhu waa laga haray kama hadhan waxa kale oo jirta habla yimi madaxtooyada oo lagu caayay burcay joogaan laakiin waan ognahay anagu iyagu samaahmay waxa dhacday mujaahidiin ka soo jeeda dhuqashay iyo baridig oo fara badan inay yimaadeen mid walba albaabka laga xidhay mid walba isagoo marar dilaac ka tagaalka laakiin anagu ka tigmeen waan runta soconaa waan bilaabana hadii Allah idmo oo ku soconaa hawsha waxaa jirta dhacdooyin yaryar oo iska fara badan oo saas maalin watan baa la xiray waxaa lagu xiray suuli qofku hadduu dambi galo waa xaqin xiro sharci waa xiray laakiin xiritaanka ayaa qaab leh inay saxaafadu ka tirsan laakiin anagu saxaafadan ma reedo waana u dhashay degmadii billi suuliga lagu xiray aad bay loogu adkaatay tira yar oo kooban ayaa la yiri waxay matashaa degmooyinkii dadku lahaa qaranku lahaa ummaddu lahayd soo jireenka ahay magaciisa sharafta lahaa bilidhig dhuqashay xayr ducaato xagal berberigeeda tirada waxay noqotay in ilma yaro sadoo jirin ay ku adeegtaan oo qaybiyaan laakiin insha Allah waa ka daba tagaynaa mujaahidiinta halka ka noqotay waxaan leeyahay bahaate maaha markii ugu horeysay xusbiga mucaaradka wadani uu ku eedeeyo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland inuu ku fashilmay xilkii loo ikmaday dalka badnaaha xukuumadda jirta say iminka way istaagtay wax ka socdaa ma jiraan oo lu sheegaynaa cagafyadii baabuurtii way wada fariisteen daamurkii ku qalalay waashmaanintii 7 bilood may qaadan mushahar way iskaga tageen baabuurtii waa la furfurtay waxaan leeyahay aan u dirayaa baabuurta waa Soomaaliya markaynu Soomaaliyeenu wadahay waxaynu ku aynaynu garanaynaa madaxweynaha waxaan leeyahay baabuurta la furfuranayo Puntland imika furfuranaysa ee laga iibinayo gacanta ku marto yaa la furfuranina laga gaaro si cali mareexaan wuu ku guul daraystay taa aad iyo aad buu guul daraystay wuxuu aad ugu guul daraystay uu sameeyaaba ina wixii waxa la wasiir maanta wuxuu lagu doortay laguma dooran cid inaad ku adeegsid